raaco iyo adduunyada afarta cadow way waa afar cadow waa kala daray midba ka daray adduunyada maanta haddaad xoogaa lacaga hesho hawadaadi baa ku qaadaysa bari waxay sarkaysaa adigoo socday maanta waa kan kibir baad bilaabaysaa war lacaga tan waa shalay bay ku soo gashay shalay waa adiga caadiga ahaa maxaa kugu dhacay is oran mayso ka fikir mayso laakiin waxaad ka fikiraysaa maalintaas nolol maalmeedka aad haysato oo laga yaabo bariba inay ka dhamaato marka horta shaydaan baa wax badan igu soo wareegaystay mar walbana wuxuu isku dari jiray hawada inuu iga saaro waa iga saaray mar kale iga saaray mar kale khadka iga saaray been idin sheegi maayo waxaan idin sheegayaa qiso igu dhacday anigoo Imaaraadka jooga oo gaari wata oo aan hadda ka hor xaramka ka sheegay waxa ay ahayd anigoo nin dhalinyaro caafimaad qabo oo fiican oo adiyaabayso oo gaariga iska wato akoonkayga laga yaabo inuu lacag igu jirto oo guri iska degan fiila ah oo hawshiisu baleed waan xanuunsaday markaan xanuunsaday baan tagay degdeg diyaarad baan qaatay isla markiiba degdeg fiisaan degdeg oo isla markiiba waa tagay xanuunkaygana ma ahayn xanuun wax looga qaban karo Dubai laakiin xogaa lacagta iyo ma badnayd Hindiya aad ugu fiicnaa dhaqaatiirtu isla markiiba Hindiyaan tagay Hindiya markaan ka degay dhalinyaradii hospitaalkii baan tagay isla markiiba ana waxaan isleeyahay waa markii kugu dambeysay khalaas mar allaale iyo markaan hospitaalkii tagay Maxir Hospital waliba Delhi baan ka degay Maxir Hospital la yiraahdo baan ka degay oo cajiib oo ma sha Allah hospitaalkii baa laygu qalay xanuunkii baa layga daaway waa lay daaway si fiican baa lay daaway bal eegya mar allaale iyo markii lay daawayay oo aan halkaas ku jiray dhowr iyo 10 cisho oo aan naajaxay oo fiicnahay oo wax iga qaldanaan jirin oo Axmedkayga hore iyo kaba si fiican aan noqday awal shalay maxaan lahaa ilaahow rabbigayow haddaad hal mar iga saarto ilaahow fandamana ku noqon maayo hawl dambana ku noqon maayo ya masaajidkaasan galay sidaas ay ahay isla markiiba waxaan idin sheegayaa nafta iyo shaydaanku inay balaayihiin masiibayihiin isla markiiba dhalinyaro ila joogto arday ahayd baa waxay yiraahdeen niyow meeshii Delhi Hyderabad ahayd dhalinyaro fara badan baa joogta hoolkii waa qabanay hoteelkii waa ku qabanay wax walba okay bay ku yiin kaala naga soo tag a'uudu billahi min ash-shaytaan warnimayo miyaad waalintii war haddana hospitaal ka soo baxay war rabbi waa in nimcay oo rabbi waa ay caafimaadi maxaa idin ka qaldan maya ma jirto bale noo abaal baan ku galay waa ka intaasaan kula joognay meesha ardaydii baanu nahay waa ka niyo sidaa nooga tagin hal habeen waxba ku qaadan meesee hal habeen naga soo tag subhanallah way igu soo warwareegaysteen marka waxaan idin sheegayaa shaydaanku qofka bini aadamka ah ilbiriqsi inuu meel la ka jirin meel kasto ku soo mari karo waa ku soo maray okay baan idin markii dambe adigu way iga hadal bateen okay baan waa tagayo Delhi baan ka soo Delhi meesha la yiraahdo Hyderabad Delhi baan joogaa Hyderabad diyaaradda baan raacnay ma diyaaradaada iyo hoteelkaaga iyo waxaaga iyo inta joogtid annaga way haye meeshii baan tagayo anoo aan ku faraxsanayn been idin sheeg maayo hawshii baan sameeyay hawshii ma sameeyay hadda ciyaari kalena waa ku noqday bal fiiriya ciyaari kalena waa ku noqday hadda ka horna waxa jirtay Boosaaso waqti hore niman culimo ah baa inta badan Puntland waad aragteen oo lagu ma qabto hawshaas aad bay culimo khatar oo ma sha Allah baa joogta culimadaasa iga hortimi waxa la yiraahdo waa kaani Axmed oo shaqo ku siinayna okay shirkad goolis la yiraahdo baa la geeyay shaqo la siiyay alxamdulillah waxa la halka bal ha qaban naga daahawsh waa yahamaan wa hadda ka hor Muqdisho aan ilaa hawsha ku bilaabay muqt waxaan laakiin ka mahad celinayaa Muqdisho waa meeshii ugu horeysay fanka ka bilaabay haddana waa meeshii ugu horeysay aan diinta ka bilaabay waa ajiib ya ilaahayna maartay iyadoo soo haleysiyay inaan maartay diinta ka bilaabo oo aan qabsado waa ku faraxsanahay haddana xumaan baan ka bilaabay soo maahan oo waqtigaas waxa jirtay 2002 bay ahayd dad badan oo hadda fanaaniina waa iga wada hooseeya oo waqtiga ay tababaray marka waxaan kaaga soo wadaa walaal oo kelmadda u soo qaatay waa xusuus waxaan u soo qaatay waxay ahayd
shaydaan iyo anagu soo kala daali waa soo kala daali hadda been idin sheegi maayo xaramkii baan tagay goortaan garan waayay ninkaas aan isaga saaro waxaan ku sameeyay garan waay xagu kaaga soo laabanaya xagu kaaga soo laabanaya xagu kaaga soo laabanaya ilaahay baan ku sheegay ya ilaahay muxuu yiri horay buu kaaga imanaya gadaal buu kaaga imanaya midig buu kaaga imanaya bidix buu kaaga imanaya ma jirto ilaa aad ka kufrido oo ilaahay ku kufrido ka harimayo shaydaan meel kasta uu ka soo galaya cadow marka adu waa soo noqday oo xaaladaas saasay noqotay oo ku gabagabowday Soma hadeer akhiiran arintayda been idin sheegi maayay anigu Hargeysa dawladii markii la dhisay waan joogay dhinaca kalena ahaa jasiira iyo halkaas aan tagi jiray waan xusuustaa dawladda markaa la dhisay anigu meesha halkan aan joogay markii dawladda la dhisay oo madaxweynaha la magacaabay ayaan socod oo Dubai ku laabtay markaas ayay igu dhalatay ilaahayna igu dhaliyay inaan fandame faraha ka qaado oo aanan dibdama ugu noqon markaasna waxaan go'aansaday inaan horta bal marka ugu horeysa xaramka tago xaramkaan tagay waa soonkii hadda aynu ka soo gudubnay soonkiisii xaramkaan tagay mar allaale iyo markaan xaramka tagay waan ducaystay ilaahay baan bari ilaahay intaan ku ducaystay waa iga aqbalay waa nasiib weyn waxaan ku ducaystay ilaahay waa iga aqbalay waxaan xusuustaa waqtiga waxaan ku ducaystay ducada iskuma badin waxaan ku ducaystay ilaahow meeshii aan cilmiga ka baran lahaa ilaahow rabbiga u heleeshii waa la heleeshiyay inta wixii oo dhan leega duway baa la yiri ceelasha halka meesha tag waad aragteen waa jooga oo cilmi baan ku jiraayo 24 saac wax iga wanaagsan ma jiraan waa koow waa qodobka labaad ee waxaan ku ducaystay oo aan ilaahay ka bariyay inaan sanadka dambe oo hadda sanadkan soo dhaafnaa in xaramka ilaahay igu soo celiyo waqtigaas waqtigaana bil baan fadhiyay 4 bishaan galay Ramadaan 4 bisha kalan ka soo baxay hadda markaan tagayay Dubai baan maray waxa ilaahay ii qadaray inaan 4 bisha Ramadaan galo xaramka soo ducadii laga aqbalay alxamdulillah marka waxaan idin sheegayaa walaalayaal waa nimco weyn halka ilaahay waxaan ballan ka qaaday inaan dibdame u sameyn hawsha kabcadii aad aragteen meesha kabcada aad aragteen baan gacmaha saaray waxaan idhi ilaahu boqol way dhaafisay inta ballanka kaaga baxay ilaahu dibdame kaaga bixi maayo walaalayaal marka walaalayaal alxamdulillah wali rabbi jaanis bishii subhanahu wa ta'ala jaanis wanaagsan ee aan ka faa'iideysan karo bishii ilaahay madin waxa xaramkii buu geeyay rabbi subhanahu wa ta'ala waxaan weydiistay ballanqaadka waxaan weydiistay anigu rabbi waa isii subhanahu wa ta'ala ya waxaan kaloo weydiistay rabbi inuu igu sugo meeshaan joogo oo Dubai iga soo kaxayo laana Dubai maxaa yeelay 10 sano bay iga cuntay 10kii sano aan Dubai joogay waxa iga fiican hal sano oo aan ceelasha joogay wax baranay waa hal sano ya adduunyada oo dhan bay iga fiican tahay intaas marka walaalayaal waxa weeye waa nimco nimcadaasna dalika fadlullah yuutihi man yasha ilaahay baa qofku jecel yahay siya laakiin hal baan idin sheegaya anigu kaligay wax ma bedeli kara idinka laftigeena wax bedeli kara haddaad fanaaniinta u tagtaan oo tiraahdaan war haade war waxaan iska daayay war walaalayaal oo iska daayay oo ka toobad keena inagoo dhan baa xilku ina saaray inagoo oo dhan baa xilku ina saaray anigu inta waa iraahdaa Facebook-yadan kala hadlaa baraha bulshadan kala hadlaa meel kasta aan u sheegaa wadada waa wada khaldan saaxiibada ay ku jiraan waa wada ognahay waa wada xun oo waxay ku dambaysaa halaag bal iska badaayo qofku waxa laga yaabaa isagoo hawshii ku jira in lagu qabto bal ma ii sheegi kartaan hal qof oo fanaana
fanaaniinta inta badan magacaabi maayo laakiin fanaaniintii ugu magaca weynay Dubai bay igu soo mareen qof aan Dubai igu soo mareen ma jiro ilaa ba aanu iimaan jiray Dubai igu iimaan jiray waa kuwii ugu waaweynaa 70 sano jiryada 80 jira maanta waxba kama hayaan waa siiro way wax ay laala iyo qaarkood waad aragteen oo markay geeriyoodeen lacag baa loo ururinay maxay taraysaa lacagta lagu ururinayo geeriyootay baa dhimatay noloshaadii oo dhan baa waxa ku bixisay tintina noloshaadii oo dhan baa ku bixisay maxay ku qabatay berina waa laga qaaday naxashkaasaa lagu qaaday godkaasaa lagu geliyay khalaas amalkii aad shaqaysatay waxay noqotay albano laga reebo iyo hebel waa cod macaan yahay bas bay noqotay hebel waa cod macaan yahay noogu soo celiya qaar baa BBC-da waxa lagu leeyahay hebel Allah naxariista uu dhintay nin cod macaan buu ahaa fanaan cod macaan waa dhintay bidha subxaanallah wa ciyaadillah qofkiiba dhimay maxaa ugu soo celinaysaa qofkaas maxaa u dhibaataynaysaa ya hebel aad buu cod macaan bay kuleeyeen waa saarayaan BBC marka walaalayaal qofku ilaahay baa siiya hanuunka anigu been idin sheegi maayo xaramka markaan tagay kacbadaas baan gacmaha saaray ilaahay baan ballankaan la galay ilaahay ballanqaadka kama baxo bini aadamka ka baxa ya rabbi kama baxo rabbi miyuu ballanqaad ka baxa ma kama baxo bini aadamka ka baxa aniguna go'aan waxaan ku gaaray inaan dib dambe inaan hawlaha u gelin inaan ka shaqeeyo wanaaga iyo khayrka bal iska badaaya dhalinyarada yaryarka ah saaxiibaday ah ee laga yaabo maantay iyagoo jaamacada dhiganaya iyagoo arday ah in lagu waaninayo adaa cod qurux badan adaa ma garanaysa fiican adaa gabar ah oo maartay jir fiican kugu yaal kaalay oo jirkaaga soo bandhig waciyaad billah waxba ku falin wanaag waad haysataa jir fiican ilaahay baa ku siiyay waxa weeyaan adduunyadan wax yar baaba noolaanaysaa amal wanaagsan ka samayso ka tag iskaga dhimo adduunyada ya waalidka adigoo baari u ah oo waxa weeye adduunyada ilaahay baari u noqday ha laga oofsado laakiin adduunyada ka dhimo adigoo oo lacag lagu ururinayo oo leeyahay hebel waa ha loo togsado oo leeyahay hebel halkaas laga haya oo leeyahay hebel sidaas iyo saas ciqaabtii adduunyadu kugu soo saaray wax kale iska daa ya qaar baa hadda koomooyin ku jira qaar baa naftu aan ka bixinaan ku jirin marka nimcada ilaahay siiyo qofku inuu xusuusto weeye su'aashii gabadhii weydiisay ahayd fanaaniinta inaad la hadasho walaal anigu fanaaniinta waa la hadlay in badan baan la hadlay waana la hadlayaa khayr Allah siiyo dadku isku mid maaha waa la kala qalbi jilicsan yahay qofna markaad wax u sheegto uu ka qaadanaya qofna shaydaankii baa saaran ninka odaga baa saarano dushuuba ka saarayaba wuxuu ku dhayaa adiga aniyo malcag baa lagu siiyay ya wuxuu ku soo qorayaa hebel oo adiga malcag baa lagu siiyay maxaa ka saaray adiga maxaa adiga hawshaas ma garanaysa war ilaahay inaan u noqono oo adduunyadan waynu ka tageynaa 24 saac inaan macaasi ku jirno ma adduunyada ala aqalla waxay ku macaanaan lahayd oo ku fiicnaan lahayd inaysan dadka fasahaadkoodayna kala dhuuntaan ya illa qofka bin aadamka ah illa adduunyada hadaad fasahaadinayso waa mushkilad kale soma almiino inaad dadka kala dhuumato fasahaad baad ku wadaa 24 saac intaasoo milyan baa laga yaabaa inay ku daawadaan fasahaadka gabar iyo wiil dhexda isqabsaday oo waxa weeye aad yaabayso sida isu sitaan oo de wax kala sameynaya waciyaadu billah macaasi weey waxyaabaha marka waxay ka mid tahay walaalayaal aynu rabbi subxaanahu wa ta'ala caradiisa inoo ka qaadi waayo haddaynu inagu hagaagsanaano oo nafteena hagaajino oo guryaheena ka bilowno oo dhalinyaradana ka bilowno oo odayaasheena ka bilowno inagoo dhan ba hagaagayna wadankoo dhan ba hagaagay ya wadanka haddii fanaan laga waayo wadankoo dhan ba hagaagay laakiin dad baa kula dagaalamaya waxay ku leeyihiin fanaaniinta maxaa ka rabta ya waliwe marka walaalayaal dadka waxa saaran waa shaydaanka marka mar walbaba inaynu iska waanino oo shaydaanka waa laga ducaystaa ilaahay baa laga baryaa ducada la badsadaa marka walaalayaal intaasaan idin sheegayaa su'aalaadkana
dee sidii sheekh waxay weydiinina wixii naftayda khusaya aniga ay weydiiya wixii naftayda khusaya waa caadi ma garanaysa saaxiibkay wuxuu weydiiyey sheekh jecesha hadda sheekhyada aan jecelahay sheekhyada oo dhan horta waa